Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanka bacdi. Waxaan rabaa maanta ummadda Soomaaliyeed inaan ugu hambalyeeyo guusha weyn oo maanta aynu gaarnay. taariikhdu ay tahay maanta 27-kii bishii shanaad 2021. waa farxad weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay faraxsan yihiin. farxaddaasina waxaa u sugnaatay oo ay ka ahaatay Allah subxaanahu wa ta'ala agtiisa. alxamdulillaah ayaan leenahay. alxamdulillaah maanta waa maalin weyn ummadda Soomaaliyeed u ah. waxaa maanta ku heshiiyey magaalada Muqdisho madaxdii dhammeed oo Soomaaliya ay noocyadeeda kala duwan xukumayeen. ay ugu horeyso dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo madaxdii kale hore u soo xukuntay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadka daneeya arrimaha Soomaaliya dhammaantooda guul weyn ayay u tahay maanta oo runtii ku gaaray heshiis doorasho loo wada dhan yahay. runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa heshiiska asiga ah oo la wada saxiixday. aad baan u soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya magaca shacab weynaha Soomaaliyeed. runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta shucuurteydana aanan lagu soo koobi karin sida niyad samida ah oo madaxda khilaafaadka u dhaxeeyay ay isku wada cafiyeen oo isku marxabeeyeen ayaan aad iyo aad runtii aan la dhacsanahay. taasina waxa waaye ilaah baa mahad u sugnaatay. ilaahaygii waafajiyey runtii. maanta adduunkani waa maalmo kooban waa laga wada tegayaa. madax caan inoo ah baa maanta taxta al-ardi ku wada jira walaalayaal saan ogsoonahay. heshiiskaasi oo la wada qaatay oo la wada ogolaadayna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. sidaa hawsha ha ku sii socoto. waxaan leeyahay dhammaystirka iyo ma aragtay heshiiskaas la gaaray sidii lagu wada dhammaystiri lahaa oona loo soo gabagabeyn lahaa oo waqti aanan lagu xirin sida ugu dhaqsiyaha badan oo lagu soo maaragta doorashadaas ay ku dhici lahayd inay ku dhacdo ayaan rajaynayaa. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka ku nool Soomaaliya qaybaheeda kala duwan inay maaragtay isa saamaxaan inay maaragtay ay la shaqeeyaan dowladooda Soomaaliya meel alle meeshay Soomaaliya ka joogaan ayna maaragtay u dhabar adeegaan dhibaato kasta ay soo food saarto hal dhinacna ay uga soo wada horjeestaan mashaakilaad kasto iyo qof kasto ka soo horjeeda hal dhinac inay uga soo horjeestaan ayaan rajaynayaa. insha Allah ta'ala madaxdii kala duwaneed waa la kala hadal macaanaa waa la kala maaragtay aragti duwanaay. marka waxaan leeyahay dhammaantoodaba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin madaxdeena tihiin maanta idinka idinku tiirsanahay ilaahay ka sakow. marka hadduu ilaahay yiraahdo subxaanahu wa ta'ala Allah idin waafajiyo hawsha iyo isu tanaasulka aad maaragtay aad ka wadaan Soomaaliya oo xilli adag oo maaragtay shacabka Soomaaliyeed waqti adagna uu ku jiro saad maaragtay u samata bixin laheedeen inaad ku dadaashaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala. annagana waxaan idin garab istaaganahay duco iyo maaragtay hiil iyo hooba leh inaan mar walba aan idinku soo duceyno inaan idin soo duceyno oo maaragtay inuu ilaahay idin fududeeyo hawsha adag aad noo haysaan haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaan idin salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.